qaar kamid ah shacabka magaalada Beledweyne ayaa soo dhaweeyay mashruuc biyo xireen ah oo laga fulinayo magaaladaasi. warkaasi waxaa magaalada Beledweyne inooga soo dirtay wariyaheena Maryan Axmed Cali. qaar kamid ah bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa soo dhaweynaya biyo xireen laga hirgelinayo magaalada Beledweyne. biyo xireenkan ayaa wax badan ka tari kara fatahaadaha biyaha webiga Shabeelle ee sanad waliba ka dhaca magaalada Beledweyne. qaar kamid ah bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne oo cabiraya dareenkooda ayaa waxa ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin in la dhiso biyo xireen. cidii wax u qabanayso ama gurmad ama hay'ada ama dawladda ama ganacsatada isxilqaamaana waa loo baahan yahay. wixii intaas ka mid ah oo laga shaqaynaa inagu raalliyaan ka nahay waana soo dhawaynaynaa. biyo xireenka biyaha looga leexinaa magaalada Beledweyne aadaan u taageersanahay. qolada ku howlana aadaan u soo dhawaynaynaa. shaqeeyaan leenahay joogoo jiraan leenahay. marka nimankaas aadaan u soo dhawaynaynaa. bulshada gobolka joogtana hala shaqeydaan leenahay. nimankaas biyaha leexina haddii aan fikirkayga ka dhiibto biyo xireenka iyo qaabka wax loo wado yacni waa hanaan lagu farxi karo waaye bulshadana wax u qaban kara maadaama ay ciriiri geliyeen noloshii dadka waqtiyada ka mid ah waqtina aan la helayninba iyagoo dhanba in biyihii la xadeeyo oo loo sameeyo nidaam oo magaaladii laga leexiyo oo nacfigoodii meel looga nacfi kara la gaarsiiyo aad iyo aadaan u soo dhawaynaynaa. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddiga isku howlay barnaamijkan biyo xireenka u istaagay muxuu ahaa inay ka mira dhaliyaan. anigu biyo xireenka Beledweyne loo sameeynayo wax ka muhiimsan oo loo sameey lahay reer Beledweyne ma jiraan. walaalaheena Somaliland lacagta tabarucaadka oo islaamka ugu soo gargaareen way ku mahadsan yihiin. waxaana jecelnahay dadka islaamka in wax looga qabto sida hadda biyo xireenada kale oo waxyeelada hadda fatahaada webi Shabeelle oo loo geysto. marka insha Allah waxaan jecelnahay dhulka hadda wax laga qabanayo waa dhulkeena. Soomaaliland lacagta ay keenan biyo xireenka ay u keenan dadka beeraleyda iska nahay. waxaan jecelnahay sida ay nooga keenan waa mahadsan yihiin 100% waxaan rabnaa in wax nooga qabto biyo xireenka nooga qabto sanad walba adkaysan beeraha naga go'aadad wixin abo urana mar walba waa baan insha Allah taala waan mahadsantihiin. waxaan jecelnahay biyo xireenkaas in wax nooga qabto qaybsi uma ogolaan lacagta waa mahadsan 100%. lacagta ay keentay walaalahan Soomaaliland ay keeneen waxaan ka codsanaynaa in lagu sameeyo biyo xireen lagu sameeyo saasaan anaga rabnaa. wax la qaybiyo oo mataqaanaa oo dad loo qayb anaga ma doonayno. waxaan doonaynaa in lagu sameeyo mashaariic in lagu fuliyo taasaan rabnaa anaga. salaamu calaykum warahmatullahi. waxa waaye Soomaaliland waxay keentay taale nusaan ka nahay anaga beeraley aan nahay. waxaan jecelnahay wax la kala qaybiyo ma rabno anaga mashaariic beeraley aan nahay mar walba naga go'aan waa gacan galnaa. waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo in markaas mashaariic lagu qabto biyo xireen lagu sameeyo. Soomaaliland waa mahadsantahay waa mahadsantahay. deeqdan lagu bilaabay mashruuca biyo xireenka ayaa waxa ku deeqay Somaliland iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya dhankeedana ay balan qaaday inay gacan ka geysan doonto dhismaha biyo xireenkaasi. Maryan Maxamed Cali, warbaahinta SBS TV, Beledweyne.